asxaabta meel walba aad joogtaan waan idin salaamay. maanta waxaan idin wadaa laba cabitaan oo ku habboon maamada naaska nuujinaysa oo miisaankana idinku badinayn. cabitaanka koowaad wuxuu ka kooban yahay boorash, timir iyo moos iyo kakao iyo caano booro. dabcan cabitaanadan waxay ku fiican yihiin caanaha naaska way badinayaan lagumana cayilaayo. marka koowaad waxaa sameynaynaa boorashka 3 qaado boorasha iyo 3 xabo timir ama 5 xabo timira biyo kulul lagu radinayaa siday u jilcaan markii mashiinka lagu rido siday cooyo u shiidmaan. waa kana cabaar markii biyaha way dhuuqsanayaan aadna way u jilcayaan mashiinka markaa ku rididna kuguma dhibayaan shiidistooda. asxaabta ayaamahan insha Allah waa idin soo badinaya waxyaabo ku saabsan maamada naaska nuujinaysa qaabab la isku caateeyo marka channelka la socda la share gareeyo qof u baahan. waa kana cabitaan boorashkii sidoo noqday inuu xoogaa bislaada u malaysaa laakiin anaka waxa ku ridaynaa ama ku shubaynaa biyaha iyo caano booraha waana ku shiideynaa maasha Allah noqonaya mana kugu dhibaayo markaa shiidaysid. caano booraha hal bakeeri oo caano boora isticmaalay hal xabo moosa iyo hal qaado kakao haddaad u baahan tahay waad ku darsan kartaa haddii kalena qasab ma aha laakiin ani waxaan jecelahay dhadhanka shukulaatada marka haddaadan haysan ama aadan u baahnayn waad iska dayn kartaa. waa kana waa isku daraaya waa shiidaya markaan shiido cabitaankeena diyaar waaye baraf waad ku darsan kartaa laakiin ani barafka ma jeceli. waa kana asagoo ku shubay bakeeriga maasha Allah cabitaankan idinkagama sheekeyn karo xagga nafaqada iyo dhadhankiisa macaan sokor xataa kuma darin waad iska saari kartaa haddaad timirta waxaa ku bedelan kartaa malab laakiin ani timirta ku darsaday markaa soo tijaabiya ila soo wadaaga. cabitaanka labaad wuxuu ka kooban yahay avocado iyo moos iyo caano. cabitaankan aad u culus yahay maasha Allah hadaa cabtid waxaad dareemaysaa in aad cuntay aad uu ugu fiican yahay caanaha naaska ugu badiyaa beebigana markaa cabo waxaad dareemaa maasha Allah in caloosha u socoto hadii calooshan beebiga ay fadhido. waa kana avocadaha aniga jeex yar un baa ka isticmaalay maxaa jira cabitaanka aniga kaliya un baa cabaayay hal xabo moosa iyo hal xabo cabitaan avocado iyo bakeeri caana. waxaa ku darsan kartaa malab ama timir laakiin aniga malab iyo timir kuma darsan waxaa ku darsaday kaliya xoogaa yar oo sokora. dabcan waxaa ka fiican mar walba inaad ku darsatid malabka oo sokorta iska daysid laakiin ani markaan malab ma haysan markaa hal qaado yar oo sokor ah ku darsaday. asxaabta cabitaanadan haddaad tijaabisiin waan hubaa insha Allah naaska caanihiisa inay idin badanayaan isla markiina quraacda waad oga maarmi kartaa cabitaankan ama waxaad ka dhigan kartaa snack ama casariyaad ka dhigan kartaa. saa idin sheegay miisaankana ma badinayaan insha Allah caanahana waxaad dareemaysaa insha Allah caanaanaas inay ku badanayaan. waa kana cabitaankii maasha Allah idinkama sheekeyn karo dhadhankiisa macaan waaye haddaa ka hesheen like iyo share subscribe.